مساجد جمعه لبوحه وقال له تكنايو أيا نن قروح بدن أو در هذا قروح بدن ستة أيا صفقة وركوت كذي وكسوة كعي علماء دي بقوي مدي وحبودك تأوجش يا جاي شيخ إمام كان ميكروفون قاتو حيري نيكا ولكن ندول تاجن وحولي جماعة مسلمين تو أولاد إلهي هيوي ديان بقول يقول دعي يقولي والله دعي ما شاء الله هذا جمعية كانوا سوكعي دعادي بقول شيكتي والله دعي هذا جمعية سدعات بسوكعي دعادي بقول شيكتي والله دعي من علماء دي كمدا فكري وياري صفر يسبولو وحول إيه مسها دمر بورستي بوكيلي مركز ما بورسن بقى بالكورة من نقاس صحبا دعادي ساسي مسعونسا دعادي سي مجمع عادني أوليادي علماء أوبر ودعيين الممكوه عليا لماذا محو وين بلشك خلاف السنة سنة دي إلهية دي وخلاف سيئة طريقة دي الله مرة يسحنا ممرن مركا وصوك عليها يأدي سقره دي سوحا لموضيا لن أفر دمر له أولي أبنى عن كتحن لكن مركو يري ما بقور سنبا أيا اللي يدور ونبر باك عقل دانه ورطة سوق قرسو ورطة النمبر كاسكا سو صح لأن نمبر كا إلهي بري طيب هذا الجمعيني كله صوكعي نكي حالات دي سوء غاية حواشا كقالبا أيها يدور ورنقا فريس وريا انتو إمام بماشي بفريسيي علماء دي ما كنتر وربا نكي دعاء الدونية خير كبضاي دعاء الدون كي محادو فريسي سيبا لقيلو مركا سوري ورنمبر باكا قبل بوري نكا مسكحدو وحكاية القضاء سيادكو قرطيو دي ما بقرسن بوري إيماك كل جين دادك ما أنت مسلمينتو إن مسلمينتو أعز الناس دادك الدنيا ده وقش شرف بدنية نقدان ما جعل الله يمسى مجعلين بل لك يجعلوا قعدتك لكن طريقي مسلم كو عزيز كل نقنيي إن أنقاذنا الديار ما هو نهي ومنهم بصدق يجيرك معك دحي اسألكم معك دحي ثم جيرك ما اسكو يمدي ويتشابهن waxay yiraahdeen habeen walba bisadi 10 20 wala na dhameeyay seenu badbaadna ka tala bixiya jiir baa yiri marka raay fiican buu soo jeediyo wuxuu yiri waa midaal yani koortan awrta la suro soo mataqaanaan jaras geela la suro hal qaado oo bisada qoorteeda la soo suro buu si markay soo socoto shanqada loo maqlo dana looga dhunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu soo saamaynde nabiga ku salliya dad muslimiinta oo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acazza annaas inay noqdaan inay waan jecel lahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba gaarka dambu gashanaya markiiba war waxba gaarka dambe ha gashane gaarka hore gasho yaa u diyaar gaarka wala inuu geliyo insha Allah dhahada Allah inaga farxiyo waxay noo ballana diinta dadaalkeega inaan waqti ku bixino tafarraq li'ibadati أملأ صدرك غنى وأسد فقرك تفرغ لعبادتي حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاقي في شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي باكل تفرغ لعبادتي وارطاعت ديدا عبادة ديدا دين تيدا وقت وصمي با إلهي كل ابن آدم هذا الدين ده وقت وصمي سمحنا ليس مركا أملأ صدرك غنى با إلهي laabtaan aniguna kaaga buuxin baa ilaahay hodol halkana laga noqdo qani غنى النفس ما كسي ويان بايد أنا كود بولي با إلهي كليهي وأسد فقرك الباب الفقر يقولون أنا كاد بولي با إلهي وكاحد يا وإلا تفعل هذا العبادة ديدا يطاعة ديدا يدين تيدا هذا وقت السين وإذا با إلهي كليهي بايد أنا كاد بولي منه
gacantaadana mashquul baan ka dhiganaa baa ilaahay yidhi mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka 24 saaca mashquul baan kaa dhigi baa ilaahay kaa yidhi faqrigana kaa xidhi mayno waa laba cuquubo ummadda ku dhacday maanta kay faqiirkee waxba haysan markay jamaacaddu u tagtay tiraada ilaahay dartii noo raac wuxuu leeyahay nima haleelayo waxba ma haysidbe mashquul baan hay buu ku odhan waxba maba haysidba hadda maqaayad buu fadhiyaa duhurkiibuu qaab u fadhiista qaab baabuurta dariiqa la eryanaya buu kala mid saa u eegaya bbcduu geynayaa adeecado dad waalwaalan ay leeyihiin oo baalkan maanta laga soo saarayna kolba mid buu gashanayaa waxa caalamka ka dhacay uu la socdaa aakhiradiisina war uma hayo markay jamaacaddu u tagtay tiraadana masjidka noo raac in yar ilaahay hadalkiisa nala dhegayso mashquul baan ahoo nima haleelayo maxaa mashquul ku tahay waxaad mashquul ku tahay cuquba kugu dhacda mashquuliyad la yidhahdo kii maalqabeenka ahaana ee haystay 50 sano ama 100 sano hadduu hurdo wuxuu cuni lahaa isagoo baanka ay ugu jirto haddana faqri buu ka baqayaa ma dhacdo isagoo 50 sano ama 100 sano quudkiisa ilaahay meel uu saaro haysta haddaad tiraado ilaahay dartii u bax oo masjidka wax gasho oo madrasada wax gasho oo macallin qur'aan maaragtana nafaqadiisa naga bixi haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay yo waxba ma haystaba isagana waxaa ku dhacay cuquubadee walam asudda faqraka albaabada faqriga kaa xidhi mayna baa ilaahay yidhi hadda diintan iyo dacwadda iyo cilmiga iyo masaajidda sidii ummadda loogu soo xidhi lahaa aad waktigaaga u bixini waydo labadaa cuquuba ku dhacaysa qofka mashquul 24 saaca mashquul baa laga dhigi 24 saacana waa kii baahan cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu madiinat almunawara uu yimiday laba camal buu nabigu markiiba madiine ka dhaqaajiyey bana almasjid masaajid buu nabigu markiiba uu dhiso ummadda u calaamadeeyey camalka labaaduu nabigu madiine markuu yimida uu qabtayna waxaa ka mid ahayd akhaa bayna almuhaajiriina waalansaar ansaar iyo muhaajiriin buu nabigu walaala uu ka dhigay muxuuna ku walaaleeyey calaa asaasi aliimaan iimaan buu ku walaaleeyey ukhuwada wuxuu nabigu asaas uga dhigay islaamnimada ayuu nabigu ukhuwada asaas uga dhigay iimaanka ayuu nabigu maaragtani asaas uga dhigay ukhuwada islaamka masaajidka markaas wuxuu noqday meesha ummadda nabigu ku tarbiyadeeyo haddii diin la baraayana qofka masjidka lagu barayay haddii wufuud nabigu uu qaabilayana masjidku ku qaabilayay hadduu nabigu ciidamo uu dirayana masjidku ka diraayay hadduu maaragtani jamaacada diinta ilaahay fidinaya uu dirayana masjid buu ka diraayay haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii ummadda uu la tashanayana masjidka dhexdeedu nabigu kula tashanayay salaadii cishaa'i buu nabigu ka baxay uu istaagay wuxuu yidhi salaaddii ilaahay baa na siiyo nagu farad yeelay laakiin sidaan ummadda salaadda aan ugu yeedhi lahayn baa laynaga rabaayo ka tala bixiya buu rasuulku yidhi danta ummadoo dhan nabigu masjid buu ka bilaabay sideen ummadda salaada xaggeega aan ugu yeedhnaa waa talo waa tashi waata ilaa imika ummaddu ay fahmi leedahay war diintan tashi bay u baahan tahay diintan dhegaysi keliya uma baahno diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka ka yar iyo ka weyn faqiir iyo qani madaxdeenni mijaheennu intoon masaajida ku kulanno salaad waan ku kulannaa alxamdu lilah laakiin waxaa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno sidaan ummadda salaada xaggeega ugu yeedhnaa salaada nebiga isagaa loo soo dhiibay halka axkaamta kale oo dhanna nebiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam soonka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loo soo dhiibay zakada markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay xajka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay alcibaadaat anwaac alcibaadaat oo dhan markii nebiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayey jibriil baa nebiga loogu soo dhiibo arlada ugu keenayey laakiin salaada markay noqotay salaada nebi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyey oo haddana micraaj loo bilaabay leylat alisra walmicraaj ayuu nebigu ilaahay la soo munaajowday dadna 5 salaadood baa nebiga loo soo dhiibay 5 salaadood laakiin habkii ummadda salaada loogu yeedhaayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaa loo dhaafay inay ka fikirtay ka tashato markaa nin saxaabiya ayaa yidhi markaas ani waxaa ila quman buuhi nebi allow
inaan bir xadiida aan ku dhifano markaas qawda markii la maqlo dadku way maqlayaan dhawaaqa markaa birta lala dhacayo deedna masjidkay imanayaan markaabuu nebigu yihi taa nasaarada ayaa isticmaasho waa jarsi weeyaan ee tala kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin kalaa yidhi anigana waxaa ila quman inaan dab shidno oo dabkaa marka la arkay qiiqiisii holuciisa ayaa muslimiintu garanayaan salaaddii wakhtigeegi inuu gaadhay deedna salaaday imanayaan taana qolada cadcaadiya dabka caabudaa isticmaasho ee tala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam deedna markaa haddana nin kalaa yidhi anigana waxaa ila tahay bowq in la afuufa fuudhin taana yahuudda isticmaasho waa caadada yahuude tu kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nebigu yidhi arrinkaasi caawa haynagu barya subaxda haynoo haata buu rasuulku yidhi sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa sidaan ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa siday ummaddan ilaahay ugu xidhantaa ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala tashanaya salaadda waa salaadda awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay-adda salaada iyo awqaadda la tukan kullahaa waa waxyi weeyaan waa cibaado weeyaan nebiga waa loo waxyooday laakiin kayfiyaddii ummaddu salaada loogu yeedhi lahaa waxaa loo dhaafay nebiga iyo ummaddiisu inay ka tashato halkaa maxaad ka fahmaysaa sidii masaajidda shaqada loo dhisay bay kamid tahay shuuradu in dadka muslimiintu danta ummadda talada ummadda maxaa ummadda u dana diintooda maxaa u dana adduunyadooda maxaa u dana noloshooda khaaska maxaa u dana noloshooda caamka maxaa u dana inay ummaddu arrinkaa masaajidda dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiyey weeyaan waa sunna nabawiya laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nebigu yihi ayaa xalay toola arkay buu yihi riyo suuradii baa socota taladii baa socota tashigii diintaa socda nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busadada ka mid ahaa ayaa yidhi xalay toola anoo dhinacna kasii lulanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yihi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaa buu nebigu yihi erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yihi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a ay isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay markaa buu nebigu yihi adinkeennii waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi